Kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada. Maanta waxaynu ka hadlaynaa sababaha keena wahsiga. Dad badan ayaa arrinkaasi la dhiban. Haddaba saaxiibayaal waxaan idiin sheegaynaa qodobada wahsiga keeno iyo sababaha aad kaga gaashaaman karto. Hamiga iyo hadalhaynta ku noolaanshaha nolol farxad leh oo ka faaruqa walwal iyo walbahaar waa yoolka dad badani higsanayaan. Balse ha ahaatee, gaaritaanka yoolkaasi waxaa ka sokeeya waddo qodaxyo leh taa oo cabsi gelisa dadka intiisa badan. Waxaa dad badan noloshooda ku gadaaman qanaaco la'aan, tabasho iyo aaminsanaan la'aanta in ay nasiib xun yihiin. Taasina waxa ay ku kaliftay in nolosha heerkii ay rabeen aysan ka gaarin. Haddaba waxaan maanta iftiiminaynaa mid ka mid ah dabeecadaha aan wanaagsanayn ee curyaamiya horumarka iyo horusocodka qofka bini'aadamka. Dabeecadaasi oo kor istaagaysa qofka inuu gaaro yoolkii uu naftiisa u dejiyay, ka reebta asaagiis, humaag iyo madmadow gelisa awoodda iyo xirfadda Rabbi ku manaystay. Wahsiga waa dib u dhigashada ama ka caajisida shaqo ka rabta inaad markaasi qabatid. Waa isku mashquulitaanka wax kale si aadan eeda dusha naftaada uga tuurin oo aad hadhow naftaada ugu qancisid. Waxaas baan ku mashquulsanaa. Waxyaalo badan ayaa loo sababeeyaa wahsiga. Kow waxaa ka mid ah inaad aragtay dad tusaale ku ah oo wahsanaya iskuna qancisid. Waa wax caadi ah inaad wahsatid. Labo, in aad ka cabsanaysid waxa ka soo bixi doona waxaad qabanaysid. Tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad muuqaal qortid ama waxaad rabtaa inaad maqaal qortid. Mar walba waxaad arki doontaa wahsiga. Wahsiga waxaa loo aaneyn karaa inaad isweydiisid talow see buu noqon doonaa maqaalkan. Inaad aaminsan tahay inaadan sidii la rabay u qaban karin shaqadaasi oo shaki kaaga jiro inaad awooddeeda leedahay iyo in kale. Wahsigu waa dabeecad aan khaas ku ahayn dad gooniya aan khaas ku ahayn. Waxaa la ogaaday xitaa dadka nolosha heerka ka gaaray oo noloshooda nidaam iyo yool u sameeyay in ay isku arkaan marmarka qaarkood inay wahsadaan hawl u baahan inay markaasi qabtaan. Haddaba si aad uga boodid ciladan ku banjarinaysa oo had iyo jeer ku curyaaminaysa, waxaan kuu soo jeedinayaa dhowr qodob oo kaa caawinaya sidii aad uga adkaan lahayd. Garo marka aad wahsanaysid. Tani waa furaha xalka koowaad oo aad kaga adkaan kartid dabeecadan qallafsan ee wahsiga. Waxaa lagaga baahan yahay inaad naftaada daacad u ahaatid oo garowsatid xilka aad u haysid nafsadaada. Kala jajabi oo wax yar ku bilaaw. Waxaa la ogaaday waxyaabaha ugu badan oo dadka ku riixa wahsiga inay tahay u qoondaynta naftooda inay xaliyaan ama ka shaqeeyaan shaqo culus. Labo, u deji naftaada yool iyo hadaf xaqiiqo ah. Shaqsiga marka uu leeyahay hadaf iyo yool qoran oo biyo kama dhibcaan ah, waxa ay keentaa arrintaasi inuu noqdo mid hufan oo habaysan. Saddex, ku shaqee meel degan oo shanqar yar. Waxaa maragma doonta ah in naftu jeceshahay isku mashquulinta wax aan waxtar badan lahayn. Shan, sidoo kale abaal mari naftaada. Naftu waxay u baahan tahay dhiirigelin ay ku shaqeyso. Sidoo kalena gun iyo gunaanad u sameey waxa aad qabanaysid. Akhriste ama daawade soo dhawow, waynu ku jecelnahay. Waxaan rajaynayaa in wax badan aad ka faa'iidi doonto maqaalkan maanta aynu kula wadaagnay ee ku saabsan wahsiga, sababaha keena iyo sida aad uga gaashaaman karto. Mahadsanid saaxiib, soo dhawow, waan ku jecelnahay.